okay maxkamaddu waxay siinaysaa doorka su'aal weydiinta si waafaqsan qodobka 206 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo la sii akhriyo qodobka 185 inay su'aalaha tooska ah ay weydiiyo qaranku abukaati أبوكر محمد علي وحاربا إنا كويديو إنا نوشيكتو مقعايا يحلك أهيسو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مقعي هو أبوكر محمد علي وحان أحي معمولها عشورها بريقة قيب تفيزوين كإلى بورك حلكاس وحال لين مقعابي لوضكن يلباتنكي waxaan ahaa maamul ku xigeen waxaa iga sareeyay maamulo kale wax doora ma lahayn waxaan kamid ahaa shaqaalaha sida dhayliga u shaqeeya maamuluhu adiga walaal ku shaqa oo soo oo soo oo awoodtaada kamid ah inaad ku maya shaqadaydu oo daan si kooban uga hadlo waxaan joogay xafiis lagu qabto lacago bangiga dhexe oo qabto doorkanaga wuxuu ahaa inaan hubinno lacagaha ku qoran xaanshida nooga imaanayo hay'adaha service-ka bixiyo tariifada ku qoran maadaama tariifooyinka ay badan yihiin inaan koob horta aan hubinno tariifadaas inaan hubinno inaan jarno warqadihii naloo dhiibtay nagula amaaneystay oo xisaabiyaha guud inaan jarno systemkii naloo dhiibana inaan ku xareyno aan gelino waa mahadsan tahay waxaa kamida waxyaabaha la sheegay oo adiga si gaar ah lagugu eedeeyay inaad adiga oo xafiiskaas madax ka ah aad samaysatay shaabad aad samaysatay oo shaabadaas maxaa uga jawaabay eedaas ayada shaabad awoodaydu maba ahanba inaan sameeyo anagu shaabada aa isticmaalaysay ee la bedelay yaa sameeyey ma adigaa samaysatay mas waa lagu keenay waa maasan tahay waa kuu sheegay horta awoodaydu maba aanba shaabad inaan sameeyo shaabadna aan bedelo shaabada waxaa sameeyey agaasimaha iga sareeya waa maasan tahay waxyaabaha lagugu eedeeyey maxkamaddan la horkeena waxaa ka mid ah akoonnadaada inay dhex martay lacag ka badan mushaarkaaga
oo weliba lacag badan ah maxaa arrintaas ugu jawaabaya sax waaye lacag ka badan mushaarkaygu waa dhex martay laakiin caddeemo cadcad maxkamadduna ay ku qanci kartaan u hayaan lacagahaas akoonnadaada dhex maray meelaha ay ka kala yimideen maxkamadda u sheeg waa mahadsan tahay waxay ka kala imaadeen afar source ay ka imaadeen afar source ay ka imaadeen afartaas source waxay yihiin familkanaga waa famil xoolo dhaqato ah oo anigaba aan yacni xoolo lagu soo barbaarshay magaalada familkeena wuxuu ku leeyahay geel iyo baadiyahaba xeryo magaalada muqdisho ku yaalo oo caanaha soolis ayaan ka ganacsanaa familkaana uga mas-uul ah sourciga koowaad kaas waa labo waxaa jiro waxaan ka mid ahay guddi oo familka ah oo qaaraan aruuriyo oo aniga aan u aruuri jiro oo madax aan u ahay wixii lagu qabtana ay cad yihiin saddex lacago aan mariyo akoonkayga anoo ujeedkaygu uu yahay inaan helo fiisaha dalkugalka waddan markaas aan u socday marka koowaad aan codsanayay ma kala aqoonin in akoon lacag lagu shubto iyo akoon in dhex la marsiisto statement inuu lagaga baahan yahay safaaradda markaas aan u socday maana ogeyn saas awgeed lacago akoonkayga aan dhex mariyaa jiro oon 2 daqiiqo xataa aysan ku daahin marka afartaas source iyo mushaarkayga kan afraad waa mushaarkayga waa maasanta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaa la shaqeynaysay waaxda qaybta dalku galka ee immigrationka iyo work permitka adiga haddii fiisa la bixiyo fiisa la kordhiyo oo aan lagu soo marsiinin ama meel kale laga canshuuro fiisadaas oo aan garoonka aadan cadde ahayn systemka immigrationka qaab aa uga kasi karto oo uga fahmi karto in fiisahaas la kordhiyey ma jiraan maya ma jiro hay-adaha aan la shaqeyno baxsho surfaceka systemyada ay isticmaalaan wax usera kuma lihin wax doorana kuma lihin keliya wixii noo imaada ayaan systemka dowladda gelinaa waxaa lagugu eedeeyey inaad qayb ka aheeday in warqado been abuura oo xisaabiyaha guud uu leeyahay aada qayb ka qaaday been abuuridooda iyo sidoo kaleeto shaabado la isticmaalo arrintaas maxaa ugu jawaabaya arrintaasi waxba kama jiraan shaabad ma been abuurin risiid ma been abuurin anagoo og in warqadda xafiiskayga ka soo baxda ay ku xaroonayso lagu iskaangaraynaayo system hay-ad aan la shaqeeyo iyo arkiifyadeeda ma dhici karto mana igu dhacdo inaan xafiiskayga ay ka soo baxdo warqad been abuur ah abuukar xilliga lagu magacaabo waxaad ku sheegtay 2020ka bisha ma noo sheegi kartaa iyo maalinta ha hay 7 Janaayo 2020
كهر حل كاسنت اللجوم مقعبين ما سيستم كدولة ده كده شغال اسم مساء waxaan ku magacaabnaa maamul ku-xigeen laakiin shaqaalaha caadiga aan kamid ahaa maadaama uu joogay maamulihii markaas iga sareeya oosan wax fasax qaadan shaqaalaha caadiga oo elboorka ka shaqeeyaan kamid ahaa maamulahaas magaciid maxamuud cali mire محمود علي مير waxaad sheegtay abukaatu oo ku weydiiyey in lagugu eedeeyo in akoonkaaga ama akoonnadaada ay mareen lacag ka badan mushaarkaaga waxaad sheegtay 4 meelood inay ka soo galaan lacaguhu akoonkaaga waxaad sheegtay inay ka mid yihiin inaad dad dhaqaale leh aad tihiin xoolo leeyahay noo sharax sidee xoolo nool akoonkaaga isku xir macnaha sida ay u soo gal resource-ka u noqon karo